أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Somaliland meel kasta joogaada waxaan kaloo salaamayaa in allaale intii u codaysay amaba kor u qaaday una yeelisay isbahaysiga amaba isbedelka jamhuuriyadda Somaliland waxaan halkan ka cadaynayaa in maanta ummadii u kala baxday laba qaybood qayb alla u rarana ah oo ah isbahaysiga amaba in allaala intii u codaysay sidii aynu u heli lahayn isbedel aad iyo aad u qiimo badan waxaan halkan ka cadaynayaa inina ay noqotay alla u raranaya inina ay noqotay waraabo u raranayaal anigu markii hore mar walba waxaan oran jiray meel kasta oo aan arrin ka jeedinayo ama hadal aan ku leeyahay oo aan ka hadlayo bulshada Somaliland ama madaxdeena waxaan oran jiray please u sacabiya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee Muuse Biixi laakiin maanta anigu maasha Allah anigu oo eedaynaya oo aan leeyahay muu iman makaankii lagu dooranayay shirgudoonka oo aanan anigu arkaynin mooyi inuu meel kala fadhiyay waan ka cudur daaranayaa hadduu meel kale fadhiyay laakiin haddaan arkin oonay kamaradu qaban waxaan halkaa ku cadaynayaa inaanu joogin marka waxaan jamhuuriyadda Somaliland aan uga tacsiireynayaa madaxweynaheenii dhammaa ee dalkan iyo dadkan mas-uulka ah inaanu fadhiin makaanka oo uu xaq u lahaa inuu isagu joogo oo uu shir gudoomiyo marka hore marka dambena isu daayo ciddii ku guuleysatay markaas inay maamusho qolka baarlamaanka marka halkaas horta aad iyo aad baan uga soo jeedinayaa yacnihii in ugu filan reeb maadaamaanu iman oogu joogin waxaan halkan doonayaa inaan ka sheego waxaynu maqlaynay dad leh maxaa uu ugu codeeyey inankii kasoo baxay Somaliland qaybta kulmiye kasoo baxay in lalahaa muxuu ugu codeeyey anigu taas waan garan waayey waxa ay kelmadaasi ku timi waayo inaad ogtihiin iyo in kale mooyaane dee dad badan oo kasoo baxay xusbiyada kale waxay u codeeyeen xukuumadda kulmiye iyo xusbiga kulmiye musharaxiisu soo sharaxay iyo weliba inankii uu cid ka tegay ee isaguna gudoomiye ku-xigeenka loo doortay oo isagana cod la siiyey maasha Allah uu kusoo baxay taas waxaan halkaa ku cadaynayaa oo muujinayaa in ummadan aynu la yaabanahay leenahay Somaliland maxay si wacan ugu hag weyday madaxweynaha Muuse Biixi uu ka soo jeedo runtii waxaan aaminsanahay oo halkan ka cadaynayaa inay yihiin dadyow in badan dalka gacanta ku hayay xukuumaddiisii ilaahay wax la maamulayay haddii ilaahay badankeeda leeyahay cadaynayo inay jeegaan ay ahayd jeegaantaasoo anigu rabo inaan halkan ka baahiyo inay yihiin qaar ku tashaday inay mar walba ku ordaan ama magaranaysa ay u ololeeyaan sidii ay mar walba cagajugleyn iyo boob iyo xaqdarro ay xukuumadda ku wadi lahaayeen taana ilaahay diiday in laga hortago weeye oo aan la yeelin waa laga diiday oo bulshadii baa diiday bulshadii baa tiri no way diiday bulshadii waxay tiri ma yeelayno haddaanu nahnay ummadda reer Somaliland isbedel baanu rabnaa isbedel baanu codaynaynaa isbedel baanu doonaynaa taasna waxaa inoo caddaatay aynu ogaanay inay soo baxday oo lagu guuleystay shirgudoonkii golaha baarlamaanka oo uu helay Isxaaq Khaliif hambalyaanu leeyahay hambaliyo waan bogaadinayaa labadii xubnood ee kasoo baxay oo ciidnayadana waan bogaadinayaa ee ku guuleystay doorashadii aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa shaqo wacanna kulle waa idin garajeyna maadaama tihiin isbahaysigii u daneynayay isbedelka ummadda iyo dalka jamhuuriyadda Somaliland waxaan rabaa horta Soomaalidu waxa la yidhi sagaaro xaaray arkaysa ayaa aasaasta anigu waxaan doonayaa inaan arrimo badan ka hadlo maanta
maadaama uu diyaar garoobay inaan shirkiraa'id oo aniga iyo khaasa aan qabto oo ku saabsan maxaynu qabsanaya maxaynu qabya iyo maxaynu diidanahnay iyo maxaa aynu doonaynaa ilma adeerayaal waa ogtihiin somaliland dad baa fuliyey somaliland dad baa waxa ku dhiigoodii inay caagooda soo horay lana yeeli maayo cagajugleyn iyo isbahaysi xunoo si xunta laysu bahaystay sii jeegaantii isbahaysimayana jeegaantii inay jeegaani ay mar walba damacdo inay inoo cagajuglayso horta ma yeelino iyo inay waxaan ku uriyay dabaldaabiyo dalkeena dadkeena ku hogaamiso ma yeelino horena waynu udinay haddana waynu diidanahay inaa ogtihiin iyo kala mooyaane anagu waxaan halkan ogaaday oon soo baaray oo baaritaan badan ku sameeyey oo iga dhaba hadalkaygaana qiimeeya in jamhuuriyadda somaliland ay xusbiga kulmiye weliba xusbiga kulmiye 80% dadkii u aasay udub dhexaadka ee aasaaskiisa lahaa inay wax badan ay heshiin ku galeen taasoo ah inay dabadaabyada dalka ay number 1 ahaadaan inay ummadda kala furfuraan inaanay xaqa u hiilin inaanay ilaahay subxaana watacaala alla ka baqin ayaan u caddaynaya waxaan ku caddaynayaa qodobkayga ugu horeeya hortayla eega 2 xukuumadood ayaa dalka isaga dambeeyey 2 xukuumadood waa ogeydeen siduu dalku ahaa maantana uu ugu diraya ta maanta dhacday weligeed may dhicin haddaa iska indha tiraysaan iyo haddaa indhaha ku furanaysaanba waxa weeye waata ogeydan in somalilan ay codaysay waatii codka uu helay 100% 2 xusbi ee ucid iyo wadani intuu helay waa ogeydeen ucidna intuu helay waa ogeydeen waata isku darsan isbahaysteen waata aragteen ee ogeydeen bishii adigu intii dee doorasho waxay dhacday 31 ayay dhacday May 7 iyo 6 labadaaba waa ogeydeen kale hadda 5 6 oo dhamaatay iyo 7 oo dhamaatay bayna ka arka intaa waxay wadeen jeegaani waday furfurka dalka dabaldaabiyada khaayinimada waraabo u faranayaal inay waxaan kurisaa u gurtaan xusbigii in intii ka soo baxday ee udubka kulmiye xusbiga kulmiye ka soo baxday welinkii arkayay wadani xusbiga kulmiye u dareertay oo cidiyo wadani ka soo baxday welinkii arkaysay u dareereen u baxeen ilaahay baan idigu dhaariyey baraxinta idinku eega awal intuu ka tira leegaa nin keliya ayaa u codeeyey isbedelka dalka in allaala intii kala meeda waynu lahna maxaa kuuskareeyey waxaa kuuskareeyey oon idiin caddaynaya waxaa jira sharciyo adag oo dalka lagu maamulo laakiin aan ahayn dastuurkeena iyo sharcigeena inagu aanu lahayn ee somaliland u sinaayeen laakiin waxaa aasaasay oo abuurtay sharciga xukuumadda kulmiye weliba ummadii iskuma jirta ee musabixii meeshuu reerku ka soo jeedo ayaa number 1 ka aasaasay udubbay dhigteen ilmaha cagoosha ku jira iyo odayga 100 jirka ah ee gaboobay nidir ay galeen baa jiro oo ah inay diyaar u yihiin dabaldaabyada iyo heerdaamada iyo istabamarka iyo dalka burburkiisa iyo ceebta iyo fadeexadda ay waddanida ku galeen muddana waa laynagu maamulay sharcigaasa ka shaqaynayay in dadka cunaa la qabto wixii alla u raranaa la qabto wixii xaqiyo daacadooda la qabto yani dee sigaa loo qormayo la celiyo inaanay ummaddu noqoto dee waa idinka arkay wax dhacaya waa idinka arkay wax dhacaya ee ay jabuuti u adeegsadeen in waxay dee ka sameynayeen yaa ee raggii taajiriinta ahaa lagu sameynayay Ethiopia ayaa tidhaweyto inanka sidii loo qafaalay gaadhay aa ogeydeen oo hog haddii markii la qaban lahaa hogga lagu rito saa inanka quruxda badan lee ilaahay sharafta siiyey baan ku uriya dee aad aragteen halkuu dee laga maray ee ilaahay ka uga hiiliyey horta waa dadkaa waa sharci markaa dhulka lagu maamo
dad badan oo la kaxaysto oo saaloo cunato xiniyaa laga siibay oo la cunno qabateeyey oo balanbalibay hoogadood ayaa jira oo aan dad badan ogeyn laakiin annagu aan ognay marka waxa weeye dadkii way baraarugeen sirtiinina waa la qabtay aniga muuse bixi markii hore wuu ii tirsanaa laakiin wuu iga dhintay maadaamaanu ka soo qaybgelin doorashadii guddoomiyaha golaha baarlamaanka muxuu ku maqnaa muxuu filanayey ilaahay ha nooleeyo odayga nagu weyne qiimaha badan leh waan u bahambalyeynayaa sida qiimaha badan leh uday arrinka anigu waan odhan karayaa dee hadduu doono wuu kula jiray arrinka laakiin nin weyne baa layidhi doodada baa layidhi aad boodaysid nin weyne intuu boodaya kaa ballaaranay mahmaada ma aqaane dee waa dareensanaydeen markuu arkay actionku u dhacayo siduu dee midda daarta ugu dhuftay arrinka u kala gooyey life baa lagu wada jiray waynu wada arkayn qodobka aan ka hadlaya waxa weeye inankii kalena waan u hambalyeynayaa isagoona guddoomiyaha maxkamadda jazaa allah khayr si waxaan baladan ka waday inkastoo ayaa ahay inuu ku fadhiisto kursigu ina khaliifin ku guulaystay kursigu aa u banaysaa ku fadhiisisaa sharcigaa dhigayay laakiin maydaan raacin nasiib xumo maydaan raacin inkastoo islahayd sidanaa qurux badan oo kuwa kale dareenaysay laakiin sharcigu qurux ma yeesho sharcigu waxaway kanaa qurux badnay kanaa qurux badnaa sharciga waa la raaca sharcigu wuxuu dhigay markii lagu dhawaaqo inuu isagu daadihiyo golaha ina khaliif may dhicin marka alxamdulillah laakiin si waxbay noogu dhammaatay bliis sharciga raaca sharciga cidna uga baqanina aniga sharcigu hadduu i qabanayo hay qabto qof kasta sharcigu hadduu qabanayo ha qabto laakiin waa in xaq laga hadlo wixii jirana waa in la shaqo la cadeeyo madaxweyne muuse bixi baan halkan fariin u diraya adeer waxa weeye wixii aad agreement la gashay waa wax ku yeela horta aakhiriya adduunyada haddii taladu saafura noqoto hulka weyn aad haysayna walaalkeeda oo ilaahay allah isoo laakiin anigu shakhsi ahaan waan kugu eedeeyey maadaamaad maqnayd tanaa ugu muhiimsan jirtay waxa weeye maanta waa la furan bariis dibadaanyadu booliga yariya kulmiyo ma jirto inakaahin waan la yara hadlaya inakaahin waa wasiirkayagii laakiin wixii looga baahnaa iyo shaqadii looga baahnaa horey doona uu ka gaadhiyey kuna ammaani mayno waanu ku dhaleecaynaynaa wasiirku dhowr jeer ayaa hadaladiisa markuu hadlayo aan qoonsadaa anigu shaksiyan hab siyaasadeed baan ku qoonsadaa hab dimuquraadiyeed baan ku qoonsadaa hab diineed ayaan ku qoonsadaa hab diineed waxa weeye bliis waxaan kaa codsanaya dabaashii aad baratay magaran ee aad ku dabaalaneysay badda rag baa soo galay badda waa lagugula jira bliis waxaan kaa codsanayaa badda waa lagugula dabaalanayaa gadaal uga deg ama alla ka boqo alla waranayaasha kusoo biir ama waxba allaha ka baqine baldigiisu lacagaadu ka wadhi dalka waa loo talinayaa dad baa u talinaya dad baa u soo baxay dad baan idiga yeelaynin dad baa raba inay dalka badbaadiyaan dad baa diyaar maanta u ah oo go-aana qaatay inay ilaaliyaan dalka taasi waa qodob waxaan la dardaarmayaa oon rabaa inaan la yaro dardaarmo xusbiga mucaaradka wadani shaqo weyn baa idin taalla dalka waxaad tirahdeen isbeddel baanu ku samaynaynaa mar walba waxaynu u codeynaynay oynu u ordaynay oynu u shaqaynaynay inuu dalka isbeddel ku samayno isbeddelkii baa laynaga rabaa hadaba oo inoo bilaabmay shalay buu bilaabmay markii lagu kala dareeray arrintii qodobaysta arrimuhu say u kala habboon yihiin ay u kala manaasibsan yihiin ha loo kala hogaamiyo dee shaqa waa idin taala qowmiyaddana idinkaa wata mar walba baarlamaanka idinkaa ka taliyo ka diige
laakiin waa inaan noqotaan dad maanta aan qasaarin codkii bulshada taladeenii arrinkeyga wadnay intaasoo sanno wax kasta waa in la dagaalgalo oo lagu dagaalgalo talo wanaagsan arrin wanaagsan horumar isdabaqabad wax walba alla u ramayaal baynu nahnay haddayna isbahaysiga allaha loo rabnaado xaqaa loo yeeliyo ummadda ilaahayna si waxaan loogu shaqeeyo intaasaan idinkaga tegayaa kollay shir jaraa'idkaygu wixii hadda ka dambeeya wuxuu noqonayaa mustasar iyo horusocod iyo maxaa la yidhaahdaaye wax taxana ah barnaamijkeeni maxaynu qabsanay iyo maxaa qabyaana adigu waa noola soo kala baxayaa aad baan idin salaamayaa waa anigoo ah Marwad Cabdi Faarax oo ka tirsan xusbiga wadani ee dalka Soomaaliya dalkan UK xubnaha ugu muhiimsan ee talaya adinbalga sugayo iyo adduunba ayaan ka mid ahay Marwad Cabdi Faarax baan la yidhaahdaa waxaan gudoomiyaha xusbiga wadani ee wadankan Sweden gobolka Somaliland gaar ahaan magaalada Västerås هذه الجنة دياروها من وحدة من ذلك وقبطه إيو دكبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته